meel aan la filayn inay ka imaan karto halis joogto ah oo gaarsiisan geeri waa laamiyada ay ku safraan gaadiidka. dabcanna dadka ugu nugul ee halistaas ay u abuuran tahayna waa carruurteenna. si kale marka loo dhigo, shilalka ay geystaan baabuurta maraysa laamiyada waxay 60% waxyeeli karaan carruurta ay kula kulmaan laamiga in ka badan dadka waaweyn. dhowrkii dhacdo ee laga diiwaan geliyey gawaarida jidadka ku jiira dadweynaha, carruurtu waa tirada ugu badan oo ay ka soo gaareen waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. halistani waxay sida muuqata la kowsatay tan iyo markii dib u dayactir lagu sameeyey inta badan wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka caasimadda. waagii hore ma jirin xawaaro badan oo ay darawalladu ku kaxayn jireen baabuurtooda maadaama ay ogaayeen inay waxyeelo u keeni karto badqabka iyo jiritaanka gaariga, balse hadda oo ay heli karaan waddo nadiif ah oo aan jajab iyo leexasho toona lahayn, isbeddelka ka jira laamiyada caasimadda wuxuu yeelanayaa wejiyo kala duwan oo diraya laba fariin oo isku xiraya bilowga safar raaxa leh iyo dhammaadka saadaal la-aan ku jirta heerka badqab ee carruurteenna. mar walba oo aan halista jirta ku gaaryeelayno carruurta, micnaheedu ma ahan inay yihiin dhibanayaasha qura. waxaa jira in kale oo da'da kala duwan isugu jira kuwaas oo khatarta laamiga ka jirta ku waxyeeloobi kara, balse carruurta oo u baahan had iyo jeer fiiro gaar ah in loo yeesho xilliyada ay gudbayaan iyo iyaga oo aan si miirqab leh uga foojignaan karin xiinka gaariga ka soo rooraya. qaar badan ayaa si argagax leh isugu daya inay orod ku dhaafaan labada dhinac ee laamiga, mana dhacdo inay indhaha u dhammaystiraan baabuurta isfiir dhaafaysa. darawallada oo sida muuqata si aan harsi lahayn 12 saac ugu dhagan isteerinka gaariga, halkaas oo qaarkood laga yaabo inay ruugayaan caleenta maandooriyaha leh ee jaadka, waxaysan awoodi karin mararka qaar inay bareega halhaleel uga celiyaan halista sida kadiska ah hortiisa uga soo muuqanaysa. walaaca la xiriira badqabka carruurteenna ee gudbitaanka laamiyada wuxuu soo ifbaxay markii gabar yar uu gaari ku jiiray mid ka mid a isgoosyada waddada wadnaha ay u dhimatay jugtii uu gaarsiiyey. inkasta oo ehelada gabadha ay xanuun daran ku reebtay sida uu falkani u sababsaday nolosheeda, haddana ilaa xad waxay ku dadaaleen inay ka gaashaantaan in ficilkan mid la mida uu kusoo laablaabto. waana markii ay dhalatay fikradda askariga jiifa in laga dhiso bartamaha laamiyada. askariga jiifa waa degaandeg yar oo ka samaysan shub oo laga dhex dhiso waddada laamiga ah si gaariga ku socda xawaaraha sare oo u dhimo xawligiisa. inta yar ee baabuurku ka tilaabayo askariga jiifa waxay fursad siinaysaa qofka lugmaalka ah ee doonaya inuu dhinaca kale ee laamiga uga gudbo. tan iyo markii fikraddani ku baahday laamiyada kale ee caasimadda, waxaa sida la tilmaamay aad u yaraaday shilalka baabuurta. inta badan shilalka noocani ah waxay ku dambeeyaan geeri. waxaa kale oo ay sababaan in xubnaha qaar ee carruurta ay naafo ka noqdaan, taas oo noloshiisa inta ka dhiman beddelaysa. balse waxaa weli muuqata in halista ka jirta laamiyada aan laga bixin jawaabtii loo baahnaa. waxaa iska cad in dhimashada cunug uu dardaro baabuur aysan gadaashiisa tiiraayin ku reebi doonin hooyadii dhashay oo keliya, laakiin ay cabsi la soo darsi doonto hooyooyinka kale oo markay maqlaan shil gaari uu goor hore wadnuhu xanuuni doono, iyaga oo u baqaya badqabka ilmahooda.